waxa uu maalin madaxweyne xasan sheekh markii uu talada uu la wareegay waxyaabaha uu sida weyn ugu ololeynayo waxa kamid ahaa Soomaali heshiis ah dad badan waxay qabaan 3 sano la joogo maanta inaanan lahayn Soomaali heshiis ah ma ku muuqata adiga Soomaali heshiis markay anigu san fahman ku sheega Soomaali heshiis waxa waaye in nidaam siyaasadeed oo Soomaaliya si cadaalad ah ay wax uu kala qaadan karto in loo sameeyo laakiin dadka ahwaadooda iyo doonistooda dambiil loo soo shubi karo madaxweynuhu saas kama wadin mustaxiil waa in asaga kursiga ku fadhiya raba inuu يعني سئون وقتورته يقول هالشيء إني فاتحة الصلاة سلدو كذا رغم صومالي ممكن الله فيري محل هو صومالي هالشيء ومزبادام 6 سنة الجوجو دولة دي سنة وحلوها وابكار جاوي هرتو دقن كصومالي ده أو سياسة معارضة لقيه قانون وحال سقدر نقف كترده هاي يدلك سقدر إن دلك الوتر هذا مثلا وحي هذا مدحون هذا دقال لو سنة كور ما بلوي 6 سنة كلوات يا ممكن ماشي يمدبه لين معارضة أو فرت قالوا دقالها مارت هذه أدم كويدينه أنتوا انتقعتي ديجانا أقول الشيء وحكي دفاع عيونه هاي شاف لقى حرايه أسوأ حتى مدحون حسن الشيء وحسكوا يستان وسياسة كل ترتمى أما وجدك استهكر هذا حكوا لك هذه وجدت اللواء وحلوها هي إن شباب نروح لقى حرايه هي أود مدحون حسن الشيخ محمود أو كاركاس اللو تيريا أيا لقى حنيه ذلك لو تري ما ذلك لقى ملك واي تصوم عليه شيء سنة Soomaali heshiisna waxay ku imaaweysay Puntland iyo Jubaland madaxweyne xasan sheekh markuu madaxweynaha ay tilibka hore country ku aayeen labadooduba madaxweyne farmaajo inta uu joogay 5 sano joogana country ku aayeen xasan sheekh hadda waa ku yihiin 3 sano joogay sanadkan soo socdana oo ku sii aanayaan sababta ma taqaana sababta waxa waa ku sheegayo dhinaca dawladda Soomaaliya dagaal kula jira oo mashruuca madaxweyne xasan jihada oo aaday ee Turkiga ugu horeeyay diidan iyo isbeddelka siyaasadeed uu keenayo iyo higsiga Soomaali oo la rabo marna istiraatiijiyadooda aysan iswaafaqi karin ayaa la xarumo kuleel maamul goboladaas yaa waa marka dawladahaas ka hadlayso طبعا أنا وين دولة مقع شيء ما ربو ولا وذي يقان لكن دولة لا يقانا دولة وين أو خليج أو لا يقان أو نقالة بدل لا أيا جبل إيه كذا جبل الدنوات دقنتها منطقة الدنوات دقنتها سومالا الدنوات دقنتها إذا ماذا إذا فنقريسا هذا يربط الديار ذي ما نيسا دولة الصومالية أنا ما أقول إن ما موللا أي هوسي مادين مرنا ما أقول سويت وحاربتها إن صومالي ولقت ضعيفة هاتو سيسن شلال كانوا يقولوا فين ذل كانوا أوصل أدقن موقع استراتيجي كنت أوصل قطر ونقول هاي حرمها إلى ومركب حيث نواكن دولته سي ما دام أشيء يسمر بعدي أنت وصلت لعبون الجيران